maanta mahad ayay ii tahay mar labaad aasasay Nimcal Foundation maanta waa mar labaad taariikh aan ka sameynay magaalada Baraawe taariikhdu u horeysay waxay ahayd dhagax dhigeeda ilaahay mahad iskale ii suura galiyay maanta inay ii suura gashay ayadoo waliba jiro cudurkan coronavirus oo jiro ilaahay noo suura galiyay inaan maanta xafladan iyo quruxda badan ee isbitaalkan oo gudihiisa arki joontiin ilaahay ayaa mahadaas iskale waxaan rabaa inaan mahad gooniyo u celiyo walaalkay gudoomiye Cali Fiqi Ambassador waa ninka ugu horeeyay ugu dhiirigeliyay Baraawe inaan ka sameeyo fikradiisina waa suura gashay alxamdulillah hobiyana hadda koor waa sheegay qofka ugu horeeyay oo aniga fikradda waa watay foundationka laakiin qof walba qof fikrad kugu daro waxay ahayd hobiyana madaxweynaha qaranka ma sha Allah oo socdaalkiisii dheeray oo gobolada ku tago bahayda gabdhaha oo aad u arkay oo soo arko hobiyo dayaca ka taagan taasna asiga ajirkeeda leh oo fikradiisa lahaa waxaan kaloo aan rabaa inaan la dardaarmo dadka ummadda reer Baraawe waxaan iska bariyaa meeshaan adinka iska leh waa caliir wax walba waa bilaaw barako waa bilaaw ugu horeeyay waxyaalo kala soo socdo irid qeyr qabta Allah ka dhigo marka waxaan idka codsanayaa meeshaan daryeelkeeda special hooyooyinka idinka iska leh waa dhul aan leediin idinka idka malihi waa idin dhisay laakiin markay mas'uuliyadda ay saaran inaan dhiso laakiin waa meel aad ilaaliskeeda maanta iiga sokaysiin because Baraawe aad degantiin inaad weeg jamcaha u timaadeen volunteer inaad nadiifisiin oo la idin tilmaamin gudiye iska saartiin marka waa masalaamantiin sida sharafta leh ee qiimaha noo soo dhaweyseen madaxweynuhu waa idin soo salaamay waa idin jecel yahay ummadii Soomaaliyeed meel bay degan tahay marka aad iyo aad kaaga mahad celinaa oday iyo habar iyo gabar iyo wiilba Soomaaliya ha noolaato